Bismillahirrahmanirrahiim. Daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan natiijada kulan ciyaareedkii ka soo baxday kulan ciyaareedkii Barcelona ay la yeelatay naadiga Valladolid ee dalka Spain. Barcelona ayaana hal gool iyo eber kaga adkaatay naadiga Real Valladolid, goolkaas oo uu dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Arturo Vidal. Barcelona ayaa garoonka ku soo gashay goolhaye Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Roberto oo lagu diray Jordi Alba, iyadoo qadka dhexena ay ka ciyaarayeen Sergio Busquets, Sergio Roberto iyo Vidal. waxaana weerarka wadajir kaga ciyaarayay ciyaaryahanada kale ah Lionel Messi oo lagu diray Antonio Griezmann. Sidoo kale waxaa dhanka weerarka saddexleyda ku wehelinaya ciyaaryahanka la yiraahdo Rico Puig. Barcelona ayaana iyadu markaan guusha ay gaartay ay kaga dhigan tahay 79 dhibcood ay kaga jirto kaalinta labaad, halka Real Madrid oo hogaanka sare haysa ay leedahay 80 dhibcood. Bedeladii ay samaysay kooxda Barcelona ayaa kala ah Clement Lenglet oo isagu bedel ku baxay, waxaana soo galay ciyaaryahanka la yiraahdo Ronaldo Araujo. Rico ayaa bedel sidoo kale ku soo baxay, iyadoo sidoo kale uu ciyaarta soo galay Rakitic. Antonio Griezmann ayaa bedel ku baxay, waxaana ciyaarta lagu soo bedelay Luis Suarez oo isagu bedel ku soo galay. Sergio Busquets ayaa sidoo kale la saaray, iyadoo ciyaarta uu soo galay daafaca dambeedka bidix ee Firpo la yiraahdo. Guud ahaan waa naga intaas saaxiibayaal warbixintii aanu kaga hadlaynay kulan ciyaareedkii Barcelona. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij mid kale lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.